Qayb libaax, sheeko Soomaali. Maalin maalmaha ka mid ah, bahalaha hilib cunka ah ayaa wada ugaadhsi tegey. Waxay heleen awr keligii meel maraya. Intay weerareen awrkii ayay dileen. Bahalladii raqdii awrka ayay ag fadhiisteen. Mid walba wuxuu sugayaa inuu dhadhamiyo hilibka, laakiin midna kuma dhacayo ilaa libaaxu oggolaado. Way wada aamuseen. Libaaxii waraabihii ugu weynaa ayuu u yeedhay. Adigu waraabow si wanaagsan u kala qaybi hilibka. Waayahay ayuu yidhi waraabihii. Marka 2 meelood loo qaybiyo boqorow, qayb adigaa leh. Qaybta labaad intayada kale ayaa qaybsanayna. Libaaxii si xoog leh ayuu wejiga uga dhirbaaxay waraabihii. Waraabihii isaga oo ceebaysan ayuu meeshii ka luuday. Waraabayaashii kalena way raaceen. Wuxuu bahalladii kale ku yidhi libaaxii, waad u jeedaan inuu waraabe garan waayay si loo qaybiyo hilibkii. Dacawoy, adigu inaad dhaanto bal isku day inaad inoo qaybiso neefka. Dacawo iyadoo cabsi la gariiraysa ayay tidhi, boqorow, badh neefka adigaa leh. Libaaxii qosol ayuu u dhacay. Badhka kale nus adigaa leh. Rubaca hadhayna badh adigaa leh. Boqorkii xoogu weynaayow. Intaanay hadalkii dhammaynin, libaaxii qosol ayuu u dhacay. Bahalladii kale qosolkii libaaxa ayay ku dareen. Wuxuu yidhi libaaxii, haa, badhkaana badh anigaa leh, soo maaha? Dacawoy waa taqaanaa sida hilibka ku habboon in loo qaybiyo. Dacawadii waxay tidhi, boqorow, waxaan arkay sida aad u dhirbaaxday waraabaha, oo waan ku cashir qaatay. Libaaxii godkiisii ayuu neefkii u jiitay. Bahalladii kale way ka qadeen hilibkii. Hambadii libaaxa ayay kala boobeen. Iyagoo cadhaysan oo murugaysan ayay kayntii miyiga ee ay ku noolaayeen iskaga noqdeen bahalladii. Murtidu maxay tahay? Qayb libaax cadaalad ma aha. Wax badsadku ma wanaagsana.